بسم الله أبدأ مع فنتهاي لون وريه وراي وحمدوني إن عن أمة الإسلام كه جرحان كل بلان يشعب بمولا عن أبا عن بشاريه ترى شباب بشر خير كبدن الجود بلان دفاع سومتي سياسة سيدا جارك أطول بلان شليت عشر لما إلا وانا ay ka qoomamayn doonaan xubbiga wiilashii gabdhaha waday ee ka soo duulay galbeed salkii isla markaana baabi'iyey oo agti mariyey guutooyinkoodii ay ku faani jireen ee sida gaarka ahayd u carbistan oo saaka wax laga hayaa aysan jirin gaar ahaan kuwii kamaandoosta iyo koofiyadaas dawla baxeen nimankii shalay cunay ayaan doonayaa iyaga iyo taliyaashooda inaan u mahadiyo walaalo dagaal khasaare mooye faa'iido ma leh dowladda Puntland dagaalkan waa mid lagu soo qaaday waxaase nasiib ah ilaahay loogu xamdinaqa ah inuu dowladda Puntland ciidankeeda uu siiyey guusha oo lagu jebiyey maamulka jeedaanka SNM lagana qabsooy gaadiid iyo hub qaar laga gubay waana hadalada horgalada laga soo dilay Hargeysa ee khasaarihii ka dhashay tukra ku fadhii waayay Hargeysa shacabkii Hargeysa hadii ka soo jeeday Hargeysa saraakiisha markii la leeyahay xalay fadhii waayay calaalkooda maanta ka dareemaysa isku dhaxyaacii Muuse Shaani baad ka dareemaysaa jabkii loo gaaray oo Muuse khalkhalka ku dhacay wuxuu ahaa warbixintii uu keenay Puntland iyo dagaalka walaalo meeshaas soo gaadiid ah oo gaashaaman ciidamada dowladda Puntland way ku furteen maxaabiisna waa ku qabteen in fara badanna waa dib bay u qabsadeen oo way xoreeyeen oo ay ka mid tahay magaalada Tuqaraq difaac kaga jiraan meeshana ciidamadu waa ka xoreyn doonaan guud ahaan gobolada Sool iyo Sanaag waa lagu xoreynayaa waana mid hadda loo soo jeestay oo waqtigan taagan ilaa labada gaarto meelaan hayna ka soo keenayaan dhiigkiisa iskale magaalada Tuqaraq waa xor ciidanka Puntland baana shalay toogtay oo afaafka hore ka joogay iyaguna xagga dambe ee burada ay joogaan waa laga saaray magaalada laakiin waa arkaynay istusnimo show ah duleed class ahaanood nimanka hortaagan baabuur ay leeyihiin maleeshiyaadka ka soo jeeda gobolka Sool ee Somaliland ka tirsan iyo midnimada Soomaaliyeed wixii Soomaali diidan meel looga soo wada jeesto dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ay xamar basataysa halkan dowladda Puntland leeyahay ka talisa labada dowladda Puntland iyo dowladda federaalka markay noqoto ka wadahan dowladda Puntland baa awood badan waa isku sheegana maaha nimankani waa gardarra iyada ku socda iyada 180 kilomitir oo dhul ah Soomaaliyeed soo socda hadda Puntland ku ah marka waa arrin noocaas waana arrin siyaasadeed ay doonayaan waxyaalo kale waa meeshan oo ay ku dabaqaan laakiin waxa meesha ku dagaalamaya waa dowladda Puntland oo dhulkii dib u xoreynaysa iyo ciidamada jeedaanka oo ka soo gudana maamul midnimeysan leh oo horumari laga dhiso waa mid hadda shalay bilowday oo bilow ah يومك إلهينا وشعونا هيا مامو شعب كلاس عانونا وعلى قاعدة ريدية وصارا يمامو كان مشينا إيو عبورنتا وكو هيا